tried so hard and got so far. waayahay iminkan waxaan soo gaarnay dhismayaashii muhiimka ahaa oo ah runtii halka ay ka soo bilaabatay magaalada Saylac. soo dhaw Axmedow. halkan markaan joogaa waa guryihii qadiimiga ahaa ee markaa hore ee Saylac ay caan ku ahayd oo taariikhdooda ay sii muuqato gacantaas. taariikhdooda ay sii muuqato. guryahan waxa sida la noo sheegay waxay ka samaysan yihiin waxyaabo cajiib. guryahani waa guryo runtii cajiiba oo ka samaysan baa la nagu yiri sonkor. قبل guryaha sonkorta ka samaysan heerka laga gaadhay wax ku jira laakiin sonkor baa laban looga dhigay iyo sibir xamsi isagu suu sonkorta u tijaabiyo carabka ayuu saarayaa. soo dhaw xamsi. sonkor ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah heer dhaqaalaha laga gaadhay Saylac ayaa sonkorta laga sameyn jiray guryaha. sonkortu cadaan sideediya wax xadaarad ay runtii dadka dheer taariikh cajiib xadaarad aad u cajiib weynaa taariikhiga ah ee islaamka qiblateyn Saylac gaar ahaan taadkii badatay sida qaadii sababta qaadii hore ما شاء الله taariikhdiisa saadku waa sii baabaaysa laakiin intaas ugu mudan uguna muhiimsan waxaa soo noqota oo ka dhismay dib loo bilaabay dib loo dhisayo laakiin waa qisa cajiiba taariikh cajiiba leeyahay ما شاء الله soo dhawaada dhamaantiin safarkeenan maanta waa safar runtii aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad u qurux badan safarkan waxaanu ka soo bilownay magaalada Burco gobolka Togdheer waxaanu ku xigsiinay magaalada Sheekh waxaanu soo marnay sidoo kale magaalada Berbera waxa safarkaygan sidoo kale aanu ku soo marnay magaalada Hargeysa ilaa iyo Boorama dabcan waxaanu soo marnay Fadhigaab Boon iyo guud ahaanba gobolka Awdal iyo guud ahaanba gobolka Salal gaar ahaan magaalada madaxdiisa Saylac hadda waxaan ku suganahay ma sha Allah meel aad iyo aad u qurux badan bilicdeedu sareyso in badan aan ku taamay inaan mar aan dalxiis ku soo tuso dadkayga Soomaaliyeed gaar ahaan asxaabteeda channelka Axmed Daawud channel ku soo wada qaadanay waqti qiimo badan oo leh aniga iyo asxaabteeda gaar ahaan my teammate Forever Family teamkan wada shaqeyno shirkadayda Forever Leaf Product halkaas oo markaan ku soo wada qaadanay waqti aad u qurux badan dalxiis aad u qurux badan jawi aad iyo aad runtii u kala kacsan magaalada Saylac oo taariikhi runtii Soomaalida kula taariikh aad u cajiiba oo waliba waqti hore qadiimiya ay ku yaalaan goobo athara oo in la xuso la booqdo dalxiisayaashuna ay soo daawadaan ku haboon sidoo kale waxa ku taala jasiirado dhowr ah la shan jasiiradood oo kala duwan laakiin tan hadda aan joogna waa Sacaadadiin waa jasiiradii Sacaadadiin waana jasiirada ugu quruxda badan leh ma sha Allah meel aad u qurux badan ku taala goob aad u qurux badan ah
indhihii mararka ay dhowr jeer oo dambe kusoo noqnoqon doonaan. jasiiradda Sacaadadiin runtii waxay noqotay meel runtii aan aad ugu soo nasanay, waqti aad u qiimo badan aan kusoo wada qaadanay aniga iyo tiimkayga qaaliga ee Forever Family. waxaan idin leeyahay nagula dalxiisa oo nagula damaashaada jasiiradda Sacaadadiin iyo magaalada qadiimiga ee Saylac iyo guud ahaanba gobolkaas oo aan ku maraynay safaraad u qiimo badan. safarkaygan quruxda badan leh waxaa ku jiray baagajyo kala duwan oo markaa mid baan xilligiisa qabanaynay. dabcan wuxuu ahaa safar dalxiiseed nasasho oo aanu kaga nasanaynay shaqooyinka aanu soo qabanay 2024 ee aadka u badnaa aadkana u cuslaa oo aanu kusoo dhaweynaynay sanadka cusub iyo dardar cusub iyo shaqo cusub. dabcan baagajyadka kala duwan waxaa noo fidiyey oo nagala qayb qaatay dalxiistoon oo ka aasaasan Somaliland gaar ahaan Awdal. aad baan ugu mahadnaqayaa tiimka uu hogaaminaya Ilyas. sidoo kale waxaa noogu jiray qayb iyaduna ah madadaalo ah oo runtii aad u qiimo badnayd. nala daawada daawasho wacan insha شو بحضر؟